adduunka aynu joogno nin walba wuxuu raadinayaa gaal iyo muslimba aadamuhu wuxuu raadinayaa oo baadi goobaya oo ku dadaalaya siduu ku gaadhi lahaa raaxo iyo xasilooni iyo deganaansho gaalkuna waa raadinaya muslimkuna waa raadinaya laakiin ikhtalafat turuq jidka loo maro waa kala duwan yahay waxa lagu gaadhana waa kala duwan yahay dadka qaar baa waxay moodeen kuraasta iyo jagooyinka iyo boqortooyada in lagu sacabiyo in raaxada iyo xasiloonida lagu gaadho dadka qaar waxay lab noqotay xoolo badan iyo hanti badan oo la ururiyo in raaxada iyo xasiloonida lagu gaadho dadka qaar baa waxay la noqotay magac inaad yeelato oo laga haybaysto in lagu gaadho xasilooni iyo raaxo lagu gaadho laakiin dhammaan intaas oo dhan waa ismootiis aan xaqiiqo lahayn waa dhaandamangaale la daba ordayo xaqiiqana aan laga gaadhayn adduunka waxa yaallay waxa ugu qiimo badan waa iimaan iyo camal saalix inaad rabbigaa rumayso kutubtiisa rumayso malaa'igtiisa rumayso rusushiisa rumayso aakhiro rumayso u diyaar garowdo rabbigaa ku xidhanto sharcigiisa raacdo wuxuu kaa reebay aad ka fogaato rabbigaa inaad raaligelintiisa ku dadaasho halkaasay raaxo adduun iyo mid aakhiraba ku jirtaa lianna bini aadamku waa jidh iyo ruux labadaasuu ka kooban yahay jidhka raaxadiisu waa ruuxdu inay raaxaysato haddii qalbigaaga iyo naftaadu raaxo weydo jidhka madaalibtiisiyo wuxuu rabo inaad ka jawaabtaay macno samayn mayso qalbigaaga maxaa dejiya maxaa raaxo geliya maxaa xasiloonida geliya allah inaad rumayso sharcigiisana raacdo daacadiisa la timaado wuxuu rabbigeen leeyahay tabaaraka wa tacaala الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب قلبي يضو وحي كحسلا وإله ذكره وحسكيس معها كرسي يتشغى معها حولي الدنيا معها عرور بدرنا معها عافمادنا معها مقعنا معها ألا بذكر الله تطمئن القلوب وحكروا ربي قال له تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن روحي عمل وناكسن سمي وطاعة ربك كدداله والسقاء مؤمن أما اللبها هذا أما ردك هذا فلنحيينه حياة طيبة وحان نولينا نولل وناكسن وقيم له الراحلة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون آخر هذا يتجانا وحي سميان وحي أقفعنا بنكو أبا البريرين شنا يقليان إلهي الرذي سيهليان وجهي سيداوانيان أدونك وكنا صنيان أدوني آخر والليبانيان يا دهيا ربك كو أبورتي كو يقاني وحكو أنفعي يقرني دنت هذا يقاني داعد كوه كجعل كنا حريصنا مصلحة هذه الدنيا آخرة أذوق سووا قرنية أذوق سيئات قرن مرسنته الله أساسيدا كله ورمرة بتاع الراحو حسيلوني مرة بتاع دقناش مرة بتاع وحي كتشرته إيمان يعمل صالح قرآن كما يلا بدن باسال لغو تلمامي أما هذا تاج قرن ويدود قرن مرتو نور العليلية يأتي آخر كسويس فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا الله دينتي سروحي كتشي سدون ضنين وأدونك الراعة دلال كيسا كراستيسا حوليهيسا مصالحديسا كدورتاي فلنحيي أن الله وحده تبارك وتعالى فإن له معيشة ضنكا نول العديد أبو لي محي مدحدو كنو ليهن هموم إيه والبهار هانتيلوهم محو كنو ليه هدوسا إيمان لهين سيبو سأونو ليه مكور هيسا ستريس سلهذا مرق حساب دبقل عبسي رفاد عذره حقين راحة جوكتا مرك maxaa u dambeeyo ka dambeeya asagoo dabar ruculaynaya oo daba ordaya la soo qabana alhaakum at-takaathuru hatta zurtum al-maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin latarawunna al-jahim thumma latarawunnaha 'ayna al-yaqin thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im adoo daba ordaya oon ka dhergin oo jeedadaadii gaadhin oo kursiba kursi kuu dhiibayo oo jagaba jaga kuu dhiibayso oo shilinba shilin kuu dhiibayo oo kolba nicmo mid kuu dhiibayso ayaa lagu soo qabanaa maxaa ka dambeeya marka su'aal imtixaanaad qabri qiyaamo adduunna waa khasaartay aakhirana waa khasaartay هلوغوين ربي تبارك وتعالى ماشو وحدي الراعة ماشو كودريات دنت هذا إسقا يقانا مصلحة هذا إسقا يقانا ربي ماشو كودري مر سيدا صدرها الدنيا أخربكو قاريسا صلاة والراحو صونكو والراحو حجكو والراحو عمرضو والراحو صدقضو والراحو دعوذو والراحو علميقو والراحو نبينا صلى الله عليه وسلم وعقودي جري بلال مؤذن كي نبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أرحنا بالصلاة بلال وصلاة نوغو الراحي وحكالو نبي جري صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب الدنيا دي نوحا ليغا جعليسيي اون كجعلاداي دمركا iyo waxyaalaha udgoon ee tiibka وجعلت قرة عيني في الصلاة القبوسيغا راحدayda xasiloonidayda salaada dhexda la yeelay buu nabigu dhigay sallallahu alayhi wasallam markuu shay culaysa ku yimaado salaadu u carari jiray markaasuu gali jiray همومتي عليسكي صارنا أردن باكفوق جري النبي صلوات ربي وسلامه عليه صلاة الراحة ربي مركز هر استاكتو لكو ديسو لفقيسو وقلبي قاقو ربي حقي سآذو وحودك ممجرو راحة الروح مؤمنك وحالة دريميو طاعة إلهي مركو كتشرو ودريميو ميل لغا هلا مجرتو راشين معان لغا مهلو عبيتان معان لغا مهلو شهواتك دمرك لغا مهلو كراستي تشغوينك لغا مهلو وحا لغا هلا معان آذان دريمي كرين لكن هدي قلبيغاغو جيريه حبنهاغونا جيريهين ما دريمي كرتيد maxaanu dareemi laanahay maxaanu dhadhamin laanahay maxaan iimaanka macaankiisa u heli laanahay laana macaan buu leeyahay dhadhan wuxuu leeyahay wax walba ka macaan nabigeenu wuxuu sallallahu alayhi wasallam daaqa ta'am al-iimaan iimaanka dhadhankiisa waxa helay man radiya billahi rabban wa bil islam diinan wa bi muhammadin rasuula idii allah rabbinimo raali uga noqoto إسلام نبضنا الدين هان رالي أقول نقضة نبي محمد الرسول أهان رالي أقول نقضة إيمانك معانك سواها له ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان إيمانك حلاوة ليه ردنا وحوليه وحول بك معان طاعدنا وحيليه ردنا وحول بك معان وحكستو معان وأدونك يا لك قيمة بدنه كم معان لكن أفكاك هدوك الريه معانك وخرار بكون نقنيه qalbigaagu haduu mugdi ku jiro oo jiran yahayna macaanka daacada ma heli kartid iimaanka macaankiisana ma dhadhamin kartid
adiga way mushkiladu marka inaga way mushkiladu waa inaga shaygu waa macaayahay laakiin maxaad u dhadhamin laadahay calashaan waa jiran tahay daawaad u baahan tahay inaga jiran sidaas daraadeed ayaa culimadu iyo dadka ahlu taacada ah waxay dareemi jireen taacada ilaahay iyo diinta ilaahay dhexdeeda waxayna boqorrada iyo madaxdu haysan ninka la yiraahdo Ibrahim ibn Bashar ayaa wuxuu leeyahay aniga iyo nin zaahid ah mujaahid ah la yiraahdo Ibrahim ibn Adham iyo nin la yiraahdo Abu Yaqub al-Ghasuli iyo nin saddexaad oo la yiraahdo Abu Abdullah al-Sakhawi saddex culimo yaan wada soconay buuri waxaan u soconaa Iskandariya socodkan haynay waxaan ku soo baxnay wabiga la yiraahdo yaani nahl urdun wabiga urdun culimadaas waa qarnigii labaad markaan wabigii ku soo baxnay waa daalanayne waan fadhiisanay si aan u yaranasano kadibna xoogaa kibis ah oo jajab ah burbur yar oo jajab ah oo kibis ah ayaa waxaa noo soo saaray buu ninka yiraahdo Abu Yaqub al-Ghasuli oo haddana ingegan waa kibis ingegan oo haddana burbur ah intii baan cunay buu Allah baan u mahad celinaa alxamdulillah kadib mid anaga naga mid ah ayaa wuxuu istaagay buu inuu wabiga biyo uga soo daro Ibrahim ibn Adham Ibrahim muusan ka sugin in loo adeegay markiiba intuu degdegay buu isagu wabigii galay ilaa biyuhu ay u gaadheen lawyaha kadibna bismillaah buu yiri biyihii wabigu ka cabay gacmuhu darsaday kadibna alxamdulillah buu yiri mar labaad buu darsaday bismillaah intuu yiri kadibna alxamdulillah buu yiri kadibna wuxuu ku jeesaday oo la hadlay ninka la yiraahdo Abu Yaqub al-Ghasuli wuxuu yiri Abu Yaqub لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم من السرور والنعيم هذا بقرد يا مدحده إيه عرور تود أوجان لهايه فرحة إيه برواقدا أينه هاي سنو وين نقول الدجال ملهايه سيف انتي قاتان بين نعمدا يا برواقدا سي وهلان بين لا الدجال ملهايه لكن ما يوجع waxa aynu haysanayna ka war haynin way nagu qabsan lahaayeen war maxaad haysataan bal isweydii xogaa kibis yaro ingegan oo burburana waa wataan waxa u dheer wabi biyihiisana waa cabayaan safar iyo socotana waa yihiin waa daalayihiin maxaa boqorradu idin kula dagaalamayaan say idin ka qaataan oo haysataan iyo boqorrada yaani caruurtooda macnaheedu waxa way waa halkan way raaxatul baal inshiraahu sadri qillatu ta'ab arinku marka maaha arintu xoolo maaha arintu caruur maaha arintu kuraas iyo jaga maaha arintu magac maaha arintu dhalaal adduunyo maaha waa lu go'sonna arintu waa dhinaca kale ربي قال لي تبارك وتعالى شرعي سنة الرحمة الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وحوليه جري الدون كوحا تالا جنو روحي أنجلين مدى آخر قلي مايو جنة الدون كتالا محيطه والراحة إيمانك يطاعة إله وجنو وحوليه جري محي أنيقا يقول سمين يان عادة وقيقو محو يقول سمين كراه aniga jannadayda iyo aseendadaydu laabtayda iigu jirtaa meeshan aadaba waa ila socotaa ifaaruqi mayso hadii la xidho oo xabsi la geliyo adduunkii mashquulkiisii baan ka soo xidhmiyo ilaahay baan la keli noqon iyo daacadiis xabsi haday igeliyaan waxba ima yeelin maxaa yeelay meeshaasaan rabbi kula keli noqon iyo daacadiisii baan u gooni noqon haddii la dilana waa shahaado oo ilaahay dartii baa la ii dilay waa wax cid walba oo muslima uu jeclaan lahaa
haddii lay masaafuriyo dalkayga layga saariyo deegaankaygana waa siyaaxa waa dalxiis aayaadka ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo caalamkaasi ima kala xigo marka maxaa laygu samayn karaa waa aniga jannadayda iyo raaxadayda iyo barwaaqadayda laabtayda iigu jirtaa imana faaruqayso waxaa kaloo uu dhihi jiray markuu ku xidhnaa qalcada dimashq oo uu ku geeriyoon doono raxmatullaahi calayh wuxuu dhihi jiray ruuxa xabsiga ku jira sajiinka xidhani waa ruuxa qalbigiisa rabbigii laga xidhay ruuxa la qafaashayna waa ruuxa hawada naftiisu ay qafaalatay naftaadii adduunya hadday ku qafaalatay waad qafaalan tahay addoon baa tahay waa lagu dullaystay laanna wax weeye ruuxa adduunkuna waa dullaystaayo wuxuu ka dhigtaa addoon buu ka dhigtaa hawada naftiisuna way addoonsataa afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaa naftaadu say rabta haddaad iska dabagasho daacad u noqoto hawada naftaada ilaah bay kuu noqoto wahaakada adduunyadan tacisa cabdu dirhami waddinaar imisaa doolarka addoomma u ah oo imisaa kuraasta addoomma u ah oo imisaa shahawaadka dumarka addoomma u ah oo imisaa lacagtii xoolaha addoomma u ah imisaa addoommo la addoonsaday yaa xor ah midka rabbigii ku xidhan xorku kaa isagaa waay amaa inta kale waxaa addoonsaday shaytaan iyo ibliis oo u soo maray adduunyada iyo madaahirteeda ma rabtaa inaad xorowdo ma rabtaa inaad madax bannaanaato ma rabtaa inaad barwaaqo adduuniya aakharaba gaadho ma rabtaa inaad ladnaato ma rabtaa inaad liibaanto rabbigaa ku dadaal tabaaraka wa tacaala rumayntiisa iyo sharcigiisa iyo taacadiisa wuxuu kaa reebayna ka fogow haddaad yeeli weydo oo adduunyadaasi aad daba orod oo ay ku lugayso maxaad ku damayn doontaa horta adduunka ka dhergi maysid habeenkii xalay oo tegay weeye nin adduunyo raadiyey intuu ka dhergo oo ka soo laabto oo ay deeqdo inuu yidhaahdo bas hadda waan dhergay habeenkii xalay oo tegay waa saas daraaddeed baa nabigeenu wuxuu uhi sal alla alay wasalam low kaana libni aadama waadiyaani min dahabin labtaqa aalian ibni aadamka laba tog oo dahaba haddii la siin lahaa mid saddexaad buu raadin lahaa طبعا macnuhu waxa weeye haddii mid saddexaad la raadina afraad buu raadin lahaa walan yamla'a fama ibna aadam ila turaab wayatuubu allahu calaa man yatuub calaa man taab yacni waxa weeye wax ku deeqaya ma jiro adduunya dadka ma deeqdo midka adduunka ugu awood badan kursiga ugu sarreeyana ku fadhiya ma ku filla mid kale inuu heluu rabaa adduunka midka ugu xoolo badan ma deeqin xoolahaas iyo kuwo kaluu sii raadinayaa ma dhergaysid allihii abuurtayba uguma talagelin in laga dhergo sidaas daraaddeed baa nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh noloshiisa wuxuu dhihi jiray allaahumma ajcal risqa aala muxammadin kafaafa waxaa kaloo nabigeennu dhihi jiray sala allahu calayhi waaalihi wasalam qad aflaxa man aslama warusiqa kafaafan waqannacahu allahu bima ataa islaannimo waxoogaaga yarka ilaahay ku siiyey inuu kugu qanciyood iimaan ku qabto iyo inaad dariiqa ilaahay qabsato adduunya intaasaa kaaga filan halkaas way meesha raaxadu jirto sidaas daraaddeed aynu ku dadaalno maanta waa wareersannahay waana wareernay mashquulkii adduunyadaa ina qaatay ruux walba waa rafaadsan yahay madax xanuun baan qabnaa kiniiniyaan ku kacaynaa subaxdii iyo habeenkii midna waa ku seexannaa midna waa ku soo kacnaa wakhti inooma joogo intaasi balaayaha ina wadata haddana maca daalika waxaynu raadinaynaa weynay soo qaban la'nahay madax xanuun inaan ka sii qaadno mooye haba yaraatee xasilooni waa la'nahay leanna ilaahay uguma talagelin tabaaraka wa taala soo noqda aynu soo noqonno jidkii aan ka lunnay aan u soo noqonno rabbigeen tabaaraka wa tacaala daacadiisa aan ku dadaalno iyada aynu ku raaxaysanno wax ka macaani ma jiro khayrka ku dadaala cilmiga barashadiisa ku dadaala ninka culimada markuu kutubtiisa dhex fadhiyo cilmiga baadhayo raaxa wuxuu haystaa ninka madaxda xafiiskiisa fadhiya uusan haysanin buu haystaa cilmiga iyo kutubta ugu dhex jiro daalibul cilmiga markuu cilmiga shariicada baranayo raaxadu dareemayaa madaxda iyo wasiiradu ma haystaan salaada markuu ku jiro quraanka akhrinayo ruuxa muslimka raaxadu haysto
madaxda iyo kuwa hantida leh ma haystaan laakiin ma hesheen bal su'aasha isweydiiye ma heshay raacada ma helay macaanka ma helay dhadhanka ma gaadhnay hadday jawaabtu tahay maya dib isugu noqo aynu dib isugu noqono waxba si inaga ah waxba inaga dhiman waxba ina haysta si aynu u gaadhno raaxadaas oo maxaa ku xiga raaxadii aakhira ku xigta oo tan marka ta aakhira loo fiiriyo xabsi weeye nabigeenu wuxuu sallallahu alayhi wasallam mu'minku adduunka xabsi buu ku jiraa wax kastoo la siiyo ruuxa mu'minka ilaahay tabaaraka wa tacaala rumaysana daacada haya adduunka intuu joogo sidii isagoo xabsi ku jira waay marka loo fiiriyo waxa aakhira sugaya gaalka iyo munaafiqa iyo faajirkuna adduunka wax kastoo lagu siiyo adduunka ayaga wuxuu u yahay raaxadoodii waay aakhira waxa sugaya xabsigii rasmiga ahaa sidaas daraaddeed dadku markay dhintaan waa mustariix iyo mustaraaxun minhu ama waad nasanoo adduunkan waad ka nasan markaad dhimato oo waad ka raysan ama waa lagaa nasanoo waad ka raysan labadaa mid dooro aday ku taallaa khiyaarkan ada iskale allah tawfiiqda hayna waafajiyo sallu wa sallimu ala khatami al-anbiya'i wal mursalin اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.